gabadheeda ka xanuunsan waa dareemi kartiin idinkana mar walba waxaan idinku jeclahay run ahaantii qof markii dhibaatadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin wada salaamay dhammaan anaya qurux akhyaarteeda meesha ku jira iyo kuwa aan ku jirin meel walba waa joogtiin waxaa idin leenahay jimca wanaagsan jimca mubaarak run ahaantii maanta channelkan waxaan soo fadhiisanayaa wax kale ma aha waxaa wada ogtiin in anaya yariisay hooyadeeda video ay soo duubtay dadka fahmay iyo dadka kale ma sheegi kari anaya way xanuunsatay waxbaa ku dhacay waxaan aragnay nayna oo inta noogu imaaday ayadoo kurbeysan oo murugaysan soo daad waxaan go'aansanay in ay idinkan aan la wadaagno waxyaalo ka mid ah anaya aan ka wareysano insha Allah fadlan marka ugu hore waan soo dhaweysiinayaa السلام عليكم دمانتي وسلامتين انت ماشي كحرين انت عن كحرين به ما انسى أركيسان ونوضع فدنا وحنا جم قانون مهند ونجم مشغولسن anyway واحد شرتا أنا يا هبينك وقدم بيسي نجت جيسي مركزي سعتي جورجي ذا سي جليسي بقى واحد عادي المية غير بقى كسل بضي مركا وحكا قد حي حصل كله حقوق ودفتس ولي بس حم بقول عادي markay u dhacday waxa dhacday dhakhtar bay ula oraday xoog biteeru ooyday macnaha kan madaxa dhinacan dambe qadaadka dambe ku dhufatay dhakhtar bay la aaday intaas oo dhan cidna uma soo sheegin markii ugu dambeysay aanu meelahaas markay around 12:40 ay tahay bay anaya ii soo sawirtay teeda yar anaya ii soo sawirtay WhatsApp ay ku soo dirtay waan naxay walaahi waan wacay waxa ku yidhi anaya teer maxaa ku dhacay way ii sheegtay marka waxay iga tiri saasaa ku dhacday aad iyo aad baan uga xumaa insha Allah ilaahay caafiyo marka isla maalintii aroonimadii muuqaal bay soo duubtay 3 daqiiqo ah waa dareemi karteen murugo iyo calaacal iyo xanuun waa hooyo ilmahaygeedii saa ka noqday marka insha Allah saa ogaada anaya insha Allah way soo laabanaysaa maanta noomaysan iman marka anaa saaka intaan wacay baan keedno maanta مسانا كوي إمنا مركا حيتر أنا حافظين إمنا يدعس وعدين صومر إن شاء الله مركا ساس واي سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدين سلام دمان أصحابتنا والبلاد دون كاتك جوكتي محايد الله وحيدين تابا ناكسن نورتا أصحابتا سأوذ جيدان مانتا صوبت انت نسوف دي سي سي آتي آدا ودرين سنتين سيدو كالتنا لقيين وحاكم مقشان واسدا سيد سيدو كالهورتا والله anaya waxa way gabadh kali oo nagu yar waa maanta aad iyo aadna wada jecelnahay sidoo kale idinkan aad wada jeceshiin ma sha Allah gabar maanta naga go'do maahan sidoo kale ayada iyo hooyadeeda horta waxa dhacay wax waa horta waa wax garabbi ku qoran waa wax sidee u dhacay ma dhihi karno marka sidoo kale idinkan in aan idin la wadaagno waajib ay nagu naqad sababtoo ee gabadhaasi waa gabadha kali maanta nagu yar ee xanuunkeeda iyo dhibaatadeeda iyo wax walba in aan la qaybsano aan u taagana sidoo kale idinkan aad wada taagantiin marka anagana daway intuu soo fadhiisanay aataasi ay tahay sidoo kale waxa waa ayada ducada aan ugu soo caawino wax kale maanta oo idinka aan u qaban karna isleediin ma jirto laakiin muhiimadda waxay tahay ducada wada soo duceen insha Allah ayadana way soo caafimaad doontaa sidoo kale maadaama anaga meesha aan joogin waxaan rabnaa ayadana hooyadeeda xoogo yar wareysi yar ama siday wax u gaareen in aan si fiican ugu sii ogaano si macnaa si wax walba fasiix aan u sii wada ogaan yaa idinkana u sii fahantaan Assalamu alaikum Jama Nexan so thank you yesterday I post one video you people give too much prayer for Anaya thank you so much actually you know that day Anaya badly fell down I never saw like this before ever and no one is with me that time night my friends also no 11:30 that time and Nemo also not at home she is somewhere that time even I want to call Mohanad but Anaya cry more than I cry even I forget the passport doctor say I know check because bring passport then I said this situation how I bring passport like this cover enjoy that can very enjoy horta wadankan dhibaatada ay leedahay taas way mugtahay qofa wax gaarayo qofa dhibaato soo gaaraysa waa wax ay ugu xun yihiin waay isbitaala tagay waxa lagu leeyahay lacag deposit inta dhig waxa lagu leeyahay sharcigiisa keen maxaa waay hadda inuu xida qofka dudhi ka socdo horta halkaas la istaajinaa waa dhaqan xumada ay leeyihiin this is the bad thing of Malaysia yes bad thing too much bad waxay tiri dhakhtaraan u geeyay tiri baasaboorkeeda aawi hadda iyada tiirad ooys ayada oonayso oo lugtii ka jaban lugtii dhibaata gacantii dhib ku gaaraysa xanuunayso wax ma u qabanay waa inaad then he checked he said this no broken then I said just this enough
yaa walahi waxay tahay keligeyga ahay xilligaas waxay ugu dhacay waxaan waay muhanadan wacay waa heli waayay tiri because xilligaas waa la wada mashquulsan yahay xaafadii ay tiri qof ila jooga male ajnabi waay ay dad Soomaaliya la degan tahay gabadhiina ma joogeen No, she is a friend house. Then I call. Yes, then she come. I want to call Mohanad first, but I say, okay, no disturb him. Maybe he is sleeping. When she fell down, I think maybe some cupboard or something fell down. Yeah. Too much noise. Then when she cry, mama, that time I saw, oh, this Anaya. And even in front of my eyes, she go. I know she. Mayna she will recover soon, inshallah. No, for her hand, I know very, but this side, sensitive. Not this side, and that which this side, with iron gate, not with wooden, with nothing. Iron, so bad for this. I worry for her this. Here she is swelling too much, But never mind, she will recover soon. Inshallah, we will make dua for her. Yes, So now she is at the home, right? Yes, no, with my friend. inshallah Mashallah, her hand is okay. Alhamdulillah, she move like this, but this, she have pain. She like this can't do. Okay, when she you take the doctor, what did they say? He say after 3-4 days, this will be recover, because no, he give me a medicine for apply for eating. No, I give her. Kullay waa dareemi kartiin oo wax dhashi waaye oo unugteeda kaligeeda ay dunida ka fiirsanaysa markay tahay hadana oo single mother markay tahay hadana oo aabaheeda aysan haysanin gabadheeda oo ka xanuunsan waa dareemi kartiin idinkana mar walba waxaan idinku jeclahay run ahaantii qof markii dhibaatadiisa uu ilin la wadaago horta dhib ma aha haddii qofka dhibaatadiisa uu ilin la wadaago sababtoo ah xaq ayuu u leeyahay sometimes dadka qaarkood waxay isweydiinayaan sababta video ay u soo duubeysanayna oo gabadheeda xanuunsan faa'iidada ay tahay maxaa waay okay social media haddii la dhaho qofka waxaa waaye noloshiisa asoo gaday oo kale waay waxa aad soo gudbinaysid maanta shopping aan aaday waxaan aaday suuqaan aaday maanta waxaan baranka ku sameeyay hebel maanta waa xanuunsaday maanta waan quslooyaa maanta waxaan iyaga dadka soo weydiinaya laba cisho ka bacdi waayaan dad soo aan soo duubayno xaaladed una soo duceeya markii aan la wadaagno faa'iido la helayo waxa waaye ducada waaye waxa qof kamid ah ducadiisa la aqbalay ma sha Allah exactly qof kamid ah horena waxa loo yiri duca walaalkaaga oo ka maqan yahay ama walaashaada mar walba maqbuul waaye sababtoo ah malaa'ikta ayaa dhahayso aamiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan soo wada ducaana aydan inay soo caafimaan doontaan rajaynaa ana wallahi arinta xitaa ana kadiisayna u taan joogo wallahi xalay tolmaan ogeyn xalay tolmaan ana hadda la ogaaday ana kuma sheegay aadna ma sheegin waxa waa ilaahay caafiyo insha Allah aydan aan booqan doonaa mar walbana sidii shalay tol garabkeeda aan ahayn aadan garabkeeda aan Ingiriis wuxuu dhaamigaysaa enjoy insha Allah Soomaaliya intaas ku dhaayaan enjoy we will stay with you the right hand is with enjoy marka enjoy aku dara fahmay ma I don't know. You are always with me. Yes, always with you and Anaya. Not me and you. We are all the people. Yes, inshallah. Marka saasna isku wada caawina asxaabtiin ducadana noo soo gama muhiimada ducada inshallah waana ku maasantiin sida quruxda badan mar walba noo dhiirigeliseen aan noo daawateen naaniyana u garab taagantiin aad baa mahadsantiin next video intaan kulmana waxaan tagaynaa bas inshallah without an I also know good inshallah bye bye